هذا لو مثال سدح مثال دين سوق هذا علماء السيهان شرين الإمام مالك عليه رحمة الله وحا قصة سي ورينيا أما صوص هاري وحوها هاي صاحب مجالس العلم وجواهره الذي جري أو بكر المالكي أي قصة صوص هاري وحيكون صاحب سنة الإمام مالك عليه رحمة الله إيا نينك الذي جري هارون الرشيد بغركي مسلمين تا وإساقلفتي سحولي مؤها لكن مسلمين تو أتلين جري نين قيمة بدن نواها وحوليها هاي هارون الرشيد باوحو يميد مقالة المدينة إمام مالكنا وحو أها إمام دار الهجرة مقالة المدينة فردين جري وعلمك كفا فين جري مساجك النبي صلى الله عليه وسلم هارون الرشيد بامرك يميد وبغركي مسلمين تا مقالة المدينة سوق علي waxaa horay u soo gaaray oo war hayay oo war ku hayay ninka la yiraahdo Malik ibn Anas Imam Malik in uu leeyahay kitaab la yiraahdo al-Muwatta oo uu dadka ku dul akhriyo dadka baro warkii isaga markuu hayo magaaladii uu Malik joogayna uu yimid ayuu wuxuu diray nin shaqaalihiisa kamid ahaa wuxuu yiri ma Malik u tag markaad u tagto iqra'uhu salaam salaaniga gaarsi kadibna waxaad ku tiraahdaa yaxmil ilayya alkitaaba fayaqra'uhu alayya kitaabka intuu soo qaado muwatta ha ii yimaado oo ha igu dul akhriyo xagee uu jooga Haaruun wuxuu joogaa xafiiskiisa ama gurigiisa إمامك هاي يمادو قريقة هاي يقول يمادو أما حفيزك هاي يقول يمادو كتاب كيس موطأ أنا هسوق هذا هاي يقول الأخريو يا واه يا واه هارون الرشيد وبغركي مسلمين إمام مالك وركي وزوق علي نكي ويمد فرين تحمبار سنة وحكويري إمام مالك أو بغركي مسلمين هارون الرشيد يا كسو سلامي wuxuuna kugu leeyahay imow kitaabkaaga muwatta sooqad aad igu dul akhridid Imam Malik wuxuu ku yiri kullaaba ku yiri Harun baa ku soo diray Soomaa ku noqo salaantana iga gaarsi iqra'uhu salaam anigana igu salaam buu waxaadna ku tiraahdaa innal ilma yuzaru wala yazur إن العلم يزار ولا يزور وإن العلم يؤتى ولا يأتي أشكبر علمي قوال سو سيارتا ماشي سال لوغو سو سيارتا إيساقو دادك ما سيارتو علمي قوال لو يمادا إيساقو حفيس يدا إيقوريها بقرادة أقومتاقو هارون هداد علمي أباهانتاه أدير كالي دقيسو ماشا علمي قالوا هايو إيه مجلس كسو قيب قال لكن إيه إمو كالي يقودوا الأخر مدحوين أنا هاي وركاس إيما يالو كوير سلام دا قارسي وركان وشك العلم يزار ولا يزور وإن العلم يؤتى ولا يأتي واتغينيك شغالها فرنتي بقاضي وحكون نقضي هارون الرشيد وركي بوشيغ يا كافي يقال ديري الله فلان بينوت ما هارون الرشيد باوركا كسو عليي وذاتكي مالك هاي مدينه فدين وشيغ وحو يري سواق سو سلامي وحونا كو يري هداد علم الرطييمو وركا marka loo sheegay هارون الرشيد waxa ag fadhiya ninkii la dhihi jiray Abu Yusuf al-Qadi oo ardaygii Abu Hanifa ayaa markaa boqorka la jooga markaas wuxuu ku yiri warkii marka loo sheegay Abu Yusuf dhahay ya amir al-mu'minin yablughu ahla al-iraq annaka wajjahta ila malik fi amrin fakhalafaka ra iraq waxa gaari doona inaad malik u yeeratay oo amar siisay oo uu ku diiday ba gaari doona i'zam alayhi arinka ku adkay oo ha ku yimaado intaad amarka ku adkayso hayimaado ila arinkaasi bulshadu gaari doona raciyadu gaari doona magacaaga dhiman doona
reer ciraaq warkaa hadday maqlaanna boqorkiiba waxaa warkii sii diiday imaamu maalik arrintaa kacdoon baa ka dhalan doona yaa reer ciraaq warkaa hadday maqlaan darajadaadii iyo qiimahaagii hoos bay u dhaceen ee maalik ku adkee inuu kuu yimaado ayadoo warkaa la hayaba isagoo warkii la hayo oo abu yuusuf iyo haaruun warkii hayaan ayaa waxaa soo galay maalik ibnu anas imaam maalik oo socda ayaa beridda ka soo galay dalaq waaba kanba markuu soo galay ayuu salaamay kadibna wuu fadhiistay haaruun rashiid baa hadlo wuxuu yidhi yabna abi caamir abcathu ilayka fatukhaalifunii ibnu abi caamir waa maalik ya maaligow waan kuu soo fariin faray oo cid baan kuu soo diray markaasaad amarkayga khilaafi miyaa markaasaa wuxuu yidhi maalik yaa amiira almu'miniin mu'miniinta amiirkoodiio madaxannagii baa tahay madaxweynaad tahay akhbaranii الzuhriyu wadakara can khaarijata bni zayd bni haabit xadiidu marka u sheegay wuxuu ku yidhi xadiid baan hayaa khaarijata bnu zayd bnu haabit baa aabbihii ka warinayay wuxuu yidhi kuntu aktubu alwaxya bayna yaday rasuuli llahi sal alla alay wasalam nebi maxamed baan hortiisa waxyiga qori jiray min kitaabi lwaxyi buu ka mid ahaa zayd waxyigaan qori jiray waxaa soo degtay aayadda laa yastawi alqaaciduuna min almu'miniina ma sinna kuwa jihaadka ka fadhiya iyo kuwa jihaadka aaday ee mu'miniintii ma sinna aayaddaasaa soo degtay hayru ulidarari marka ma soo degin hayru ulidarari qaybtaasi weli ma soo degin aayaddaasaa soo degtay buuri markay soo degtay oo waxay leedahay dadka jihaadka ka fadhiya iyo dadka jihaadka aaday ma sinna meesha waxaa fadhiya marka aayaddu loogu akhrinahayo nin la dhihi jiray indhala ayoo saxaabi ahayo ibnu umma maktuum la yidhaahdo ayaa rasuulka hor fadhiya wuxuu yidhi rasuulka ilaahayow innii rajulun dariir anugu waxaanahay nin indhala allana aayaddanuu soo dejiyey jihaadka aayaddan ku saabsan buu soo dejiyey aniguna waan indhala ahay inaan dadka ka hadhana ma rabo in layga fadli batana ma rabo aayaddiina waxay leedahay ma sinna kuwa hadhay iyo kuwa baxay anigiina ma bixi karo waa indhala ahay maxaa seen yeelaa markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi sal alla alay wasalam laa adri laa adri ma ogi buu yidhi aayaddana ilaahay soo dejiyey anugu waxba kama qaban karayo saasaa ilaahay yidhi aniguna waxba kama qaban karo wuxuu yidhi qalinkii aan ku qorayaa dhahaya zayd qalinkii aan ku qorahayo waxyiga oo cusub oo qoyan baan dhihi lahaa oo qoyan oon weli ingegin ayaa waxaa soo degtay yaa nebiga sal alla alay wasalam markiiba waxaa ku soo degtay hayru uli darari oo markaa loo cudurdaarayo dadka dhibaataysan ee indhala ama duruuf darteed u bixi waayo jihaadka u aadi waayo kuwaa iyagu kuma jiraan baa layidhi aayaddaas qaybtaasaa soo degtay oo loogu cudurdaarayo cabdullaahi ibnu maktuum iyo dadka la midkaa wuxuu leeyahay marka imaamu maalik boqorkii muslimiintow aayadda xadiidkaasaa la ii sheegay buu yidhi muxuu ula jeedaa marka xadiidka iyo aayadda muxuu ula jeedaa uu imaamku u sheegay boqorka u sheegay wuxuu yidhi yaa amiira almu'miniin xarfun waaxidun bucitha fii jibriila waalmalaa'ikati min masiirati 50,000 caam hal xarafa kelimo qur'aana ayaa malakul jibriil iyo malaa'igtii la socotay waxaa looga soo dhiibay meel loo socdo 50,000 oo sano loo socdo waa 7 sano korkooda ayaa loo soo dhiibay kelimada ah hayru uli darari masaafada intaa la-eg baa malakul jibriil oo sharafkiisa garanayso iyo malaa'igtii kale ayaa waxaa looga soo dhiibay 7 sano korkooda looga soo dhiibay haddii kelimadaasi iyo jumladaasi loo soo dhiibay alaa yanbagii lii an ucizahu wa ujillahu miyayna aniga igu habboonayn marka in aan karaameeyo oon sharfo oon weyneeyo oon ciseeyo soo iguma habboona marba 7 sano korkooda malakul jibriil haddii looga soo dhiibay jumlo qur-aan ka mida oo halkaa laga keenay oo intaasoo malaa'igta laysu soo raaciyey oo malaa'igta kii ugu sharfadnaa loo soo dhiibay aniga miyaanan ahayn inaan sharfo marka oon cilmigii sharfo oo aan ka ilaaliyo inaan yacni iridaha iyo xafiisyada iyo guryaha boqorrada inaan ku dulleeyo miyaynan habboonayn buu ku yidhi markaasaa wuxuu ku yidhi
وإن الله تبارك وتعالى رفعك وجعلك في هذا الموضع بعلمك إلهي ميشا ما أنت أتشوكته إيه بقرن ماذا إيه مدحن ماذا إلهي وحكوه قارسي علمك أقوم بكوه قارسي فلا تكن أنت أول من يضع عز العلم فيضع الله عزك هنقول الروح أجوري علمي كان عزك سيا شرفتي سهوس أوليك أو إلهي مركا أذيك أنا هوس كله كدولي هالسمين بقول إمام مالك واني مركا نينكي هارون ها بقركي واني سيفي عبو لهل رشيد مركا واستاجي بقركي واستاجي كدبنا وحو الراعي إمام مالك gurigiisii uu raacay asagoo ka dhageysanaya kitaabkii muwaddaha maxaa isbedelay marka kaalay guriga iigu imow oo muwadda iigu akhri waxay ka dhalato ka dambeeyay inuu lugeeyo imaam maalik isagoo arday uu raaco oo imaam maalik uu muwadda u soo akhriyo ayaa marka ka dambeysay laakiin markii meeshii cilmiga lagu qaadanayo la tagay haaruun rashiid ilaa waa boqor Soomaa أرضي موسى نحفر يصننه إمام ماشي كورة محو هاي منصدي كورة أيوه فريستيبا يعني أنا بقرأ سيداً رعية دحية أقول نحفر يصنوه ماشي كورو آير إسكا فريست مركو فريستي إمام مالك مهرين وحكويلي مركو دمعينو أخريو إمام مالك واحد شرتي ما كان مصطلح واتكو قادتين بانو مالينا ياي لبا قاب علمك علماء لوغا قادن جير قاب waxa way السماع inuu sheekhu akhriyo ardayguna dhageysto qaabka labaadna waxa way القراءة على الشيخ ardada kamida sheekha ku dul akhrinaya sheekhuna waa dhageysanaya ardada kalena way dhageysanayaan wuu saxaya marka reer Madiina oo Imaam Maalik sheekh u ahaa قابك علمك وكلا قادن جيران وحوها القراءة على الشيخ أرضا نين كمدا أخريني مركاسو شيخنا دغيساني مركي او ماشي سو فديستay oo manasada uu fadhiistay هارون فلما أراد أن يقرأه على مالك مركو دمعي إنه مالك كدول أخريه يا أخرينيا هارون مركو دمعي إنه كو أخريه مركاسا وحو كويري تقرأه علي ها وحو يري محو هاي مركو ماشي سو فديستay buu ku yiri imaam maaligow igu dul akhri aan ka dhageystay buu ku yiri markaas imaam maalig wuxuu yiri ma qara'tu ala ahad منذ zaman waligayba ruux wax kuma dul akhriine adiga seen kuugu dul akhrin waay cilmiga ardayga anaga nugu dul akhriya adigaana haaruun oo arday ah anigoo sheekayna kuugu dul akhriya hayga sugan buu ku yiri markaas wuxuu yiri haaruun waayahay waan yeelay waxaad samaysaa fatukhriju an-naasa anni hatta aqra'ahu ana alayk dadkan kale iga saar buu aan kugu dul akhriye ardadan kale iga saaro aniga adiga keligeen aan noqono ilaan markuu akhrinayo waa la sixsama uu gafgafi boqorkuna inuu gafamo rabo oo la saxsaxo marka wuxuu dadkan kale oo dhan iga saar aniga adiga keligeen aan noqono haye Maalik Ali rahmatullah wuxuu ugu jawaabay إن العلم إذا منع لأجل الخاصة لم ينفع الله به الخاصة علمي سيدي سبا هدي دد قونية لغو خاصيالو دد وينها كلية أرضا كلانا لغا سهر وأذيقو كلا لغو خاصيالو أذيقونا انتفاع سن ميسيد ومدي كلانا انتفاع سن ميسيد سيداس درادة علمي مجلس كعام كاكو قادو أرضي باتهاي ardaynimada ogolow oo dadka cilmiga qaadanaya haaruun oo kamid noqo طيب markaas imaam maalik wuxuu amray nin la dhihi jiray macni ibn Isa al-Qazzaz oo arday imaam maalik aha ayuu yiri akhri marka asagii baa marka akhriyay markuu qiraa'adii akhriyay ayaa maalik wuxuu ku yiri haaruun ar-rashid wuxuu ku yiri ya amiir al-mu'minin adraktu ahli al-ilm bi baladina wa innahum la yuhibbuna tawadu'a lil-ilm ماشي بولي هارون فديا موقت منصدي كورو فديا مركز وحكوري هارون الرشيد وبوركيو إمام أميرك المؤمنين تو وحن سوق قاري بولدتك علماء أيجو أو شعل إن علمي الله قادنا يهوس ليسود دقو أو علمي الله تواضعه أو أن ليس قادين أو أن منصد يبغرني ولا لموجي سنين ساسا أنا علماء كسوق قارني بكوير
فنزل هارون الرشيد عن المنصة هارون الرشيد ماشي كوري وفدي بقرنمده waa ka soo degay dhulku fadhiistay فجلس بين يديه isagoo arday ah uu imaam Maalik hortiisa soo fadhiisto xilmigiisa soo ku qaatay xirtii uu ka mid noqday ardadii uu ka mid noqday Soomaalitaan xilmiga sida loo sharfay Soomaalitaan xilmigu markii sharaftaas uu leeyahay boqorkii baan ay madaxweynaha ahay kaale ilmahayga u akhri واتي كل عضي وكلت سيد وكلت الإمام بخاري عليه رحمة الله البخاري يعني محدث هاي مسلمين تا محدث كودي أمير المؤمنين في الحديث ولا حستي وربنا لقفها فيه وحال يدي إمام البخاري وحو قباء قرآن كونه مخلوقيه بين هاي سيداس دراديد وركي حماية كفا في دراديد بو يساقه جرودي دولكي اوچاقه نيسابور iyo dhulka oo dhan buu isaga xarar wuxuu aaday Bukhara dhulkii asalka u ahaa meeshuu ka soo jeeday Samarqanda iyo Bukhari meeshaas uu aaday meeshii markuu tagay caan buu ahaa caalamul islaami oo dhan buu caan ka ahaa xidig buu ahaa ayaa waxa gaadhay reer Bukhara waxa ay Bukhari oo lagu soo ururay marka ardadii cilmiga baa laga qaadanaya ninkii amiirka ka ahaa Bukhara baa maqlay markaas wuxuu ku yiri إمام البخاري قارسية هاي مادو عرور تيدا يا أنيقا دين تهانا برو هايقو يمادو قريقين سيدا سوكالو بخاري وحكويري أميركا واحد يقا قارسيسان أناقو مضاحدا قريها وقومتاقنو يا عرور تودا هادو علمي الربهائي مادو نيكي بقركا أميركا واحناق معروبة أمركا يجي ديدا يوكالا وحي برو دين تيشك ديدا ميها حناقي وحناقي فتنة كدلتي إمام البخاري إنه حلو ضمعي دباتي إنه جيستو ضمعي كدبنا إمام البخاري ويسجه جرودي بخارى سمرقند يتولين كاسو إسكا آذي امتحان كاسو مركو كل حي كدي ومركو دعاء سنة إمام البخاري عليه رحمة الله وفينا أنت مالو البل فينا يحسد يبلايا الشيء أي مركا ليه إلهه يوفسو ليه إمام البخاري وقت دير من أولين مركا وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أخردان سيرة سفيان الثوري عليه رحمة الله الإمام أمير المؤمنين في الحديث سفيان الثوري هذا أخردان واديا بيسان سيدا سينا ومدو أيكت هذا علماء الشرف وقالها مركز علمي يقعدوا مدح بنانا مدح هذا يضدك محولها عليه يعني واحد يضدك مقع عليه أين له صرتني أركيين إلى كقيمة بديهن وكصومري سفيان الثوري عليه رحمة الله أسوأ أو صعده oo muxuu ahay xaj u socda oo umadu ay dhinacyihiisa ay yaacayso oo xagga hadaad fiiriso ma arkaysid dadka yaani say u badan yihiin ruuxa u shay arkimaysid xagga hadaad fiirisana arkimaysid xagga iyo xagga dhinac kastoo fiirisaba dadku aad bay u badan yihiin waxay la socdaan yaani imaam Sufyaan Thawri bay la socdaan Sufyaan bin Sa'iid Thawri ay la socdaan dadkaasi sheekhay jeceliye sheekhaasay kula guurayaan sheekhaasay daba socdaan waxa aragtay marka adoon uu lahaan jiray baa leeyahay Haaruun Rashiid ayaa kor waxay ka aragtay dadkan jamaahiirta yaacay war maxay ahaayeen markaas waxa leeyahay dadkaasi waxay la socdaan sheekhaas oo sheekhaasina muxuu ahaa Sufyaan Thawri baa la dhahaa oo dadka lacag buu qaybiyaa ma xoolusiya maya maxaa loo la socdaa cilmigaas iyo hawlahaas lagu jeceliyo oo dadku raacsan marka way markay leedahay aleelahay boqorka dhabta ah kaas weeyaan bayt ya boqorka dhabta ah waa ninka dadka inta leeg iska daba guurahaya ee ayna kursina ku fadhiyin dadkana aan soo garaacin oo soo jafin cabsi aynan keenin ee un qulubtoodu iska raacday ninka way ninka boqorka bayt Haaruun boqornimada uu sheeganayo waa boqornimo dadka markuu u baahdo uu ku soo ururinayo يا ciidamo uu diray dadka la soo xashiriyo يا taasi boqortooyo ma ahbaytay boqortooyo wata markaad cilmiga sharaf u yeesho inaad adigu sharaf leedahayna aad aragto izzi iyo karaamada cilmigu leeyahayna aad ay ka muuqato markaasi ilaahi tabaaraka wa taala sharaf iyo izzi ku siinaya haddaad laakiin adoo izzi leh oo sharaf leh oo ilaahi diinku siiyo oo aqoon ku siiyo oo kitaabkii fahansan oo xadiidkii fahansan oo cilmigii garanaya haddana aad isliido ya adigii baa sharafta iska qaaday see sharaf ku yeelan marka
markaad moodo ka xoolaha haystaa inuu ka qiimo badan yahay oo ka kursiga ku fadhiyo inuu ka qiimo badan yahay oo iyaga iridahooda iyo albaabadooda iyo xafiisadooda aad ka ag dhamaan weydo oo iyagu markay soo baxaan aad qiimo wax qiimo weyn moodo ka qiimo badan yahay aad moodo markaasi yani wax adaa is sharaf dilay adaa sharaftaada ku ciyaar ma fahanteen marka waxa u baahan tihiin ilaahay tabaaraka wa tacaala qiimo idin yeelay culimada hadaatihiin dalabatul ilmi hadaatihiin yani wax weeyaan daalibul ilmiga marxalada uu diinta baranayo oo cilmiga dalbayo waa ka aan soo tilmaanayo wax ilaahay raali ka yahay jecel yahay buu waqtigiisa gelinaya kuna mashquulsan waxaad sameeysan marka cilmiga barashadiisana ku dadaala waxaadna ogaataan ilaahay tabaaraka wa tacaala sharaf uu bixiyo iyo qiimo uu adduunka bixiyo kii ugu qaalisanaa buu ilaahay insiiyo tabaaraka wa tacaala haddaad garan weydaan oo qiimaha ilaalin weydaanna ilaahay waa idinka celinaya waa idinka ceshanay la in shakartum wala in kafartum inna cadaabi la shadiid haddaad shukri weydo qiimaha ilaahay ku siiyo garan weydo oo aad waxaan qiimo lahayn aad qiimo moodaay ilaahay tabaaraka wa tacaala waa kaa qaadanaya waa kaa ceshanaya qiimo la'aan baad ku soo dhici marka waxaa khalad ah culumta maadiga in la barto oo cilmiga caafimaadka la barto oo cilmiga injineeriyada la barto oo culumta naafici adduunyada in la bartaayo waa shay inoo bannaan marmarka qaabkoodna waajib kifaa'iya buu noqdaa laakiin isma gaari karaan ismana dhawaa nin injineer ah iyo dhakhtar iyo caalim diinta yaqaana laa yastawiyaani abada yaa nin waqtigiisa iskuul iyo jaamacad iyo chemistry iyo biology iyo muxuu ahaay taariikh iyo juqraafi cimrigiisa ku dhamaystay oo PhD xambaarsan iyo caalimka diinta yaqaanay miismayn yaa miismayn masna بشهادة القرآن قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون بروفيسور كأن دين تأقون وجاهل في حكم الله حكم كقرآن بروفيسور كأن دين تأقون وحو قليا والذين لا يعلمون نختار كأن دين تأقون وحو قليا والذين لا يعلمون سياسي كأن دين تأقون وحو قليا والذين لا يعلمون بقليا مركا halka waxa soo marka qul hal yastawi alladina ya'lamuna wa kuwa diinta yaqaan walladina la ya'lamuna wa kuwa diinta aqoon magacu dooniya xambaarsana hanti ha lahaado milyaneer ha ahaado madax ha ahaado ilaahay tabaaraka wa tacaala ma uusan simin alla wuxuu fadilay dadka diinta xambaarsan aqoonteeda leh isla markaana dhaqankeedii haya hadii marka ilaahay kuwa idinka dhigay oo malaayiintaas ilaahay ka qadiyay wuxuu ilaahay ka qadiyay malaayiinta haduu ilaahay idin siiyay soo sharaf ma war soo sharaf ma soo sharafta inaad ilaalistaan marka ma alhamdulillahi alladhi hadana alhamdulillahi alladhi hadana lihada wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah alhamdulillahi alladhi a'tana al-mulka ma alhamdulillahi alladhi a'tana al-mala ma الحمد لله الذي أعطانا الجاه ما الحمد لله الذي هدانا لهذا واحد إلهي تنجو هنوني دين تنجو هنوني أقوانت تنجو هنوني دقن كذا نجو هنوني الله سامح هاد إسكاله مركب واحد وقيمة بدن كإسقاوي كفر أذيجا كد دالة هكب حنا هكنقننا يعني إخلاص كده هلا يدين كهلو دال كده هلا يدين كهلو maalinta ka dambaysa sharaf baad ku yeelanaysaan sharafta ugu dambaysana waa markaad ilaahay la kulantaan sooma inda liqaa ilaahi tabaaraka wa tacaala markaad allah la kulantaan oo la kala baxayo markaas baa ilaahi tabaaraka wa tacaala wuxuu idin xidhayaa taajka sharafta la idin xidhayaa meel gooniye qiimo gooniya la idin siinaya darajaad gooniya la idin siinaya oo aan cid haysatay ay yar tahay adduunyo aakhiraba liibaantu marka waxay ku jirtaa diinta barashadeedana ka run sheega aqoonteeda ku dadaala meelay ku egtahay male meelay ku dhamaato male dhexda ha kaga hadhina ilaahay ba hadduu cagta ku saaray ha ka hadhin ilaa aad muxuu ahaayay ku dhimato laana cilmiga diintu meelu ku dhamaada miyaa jirta waqul rabbi zidni cilma nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam
ربي وعلمي سيادي ده وفوق كل ذي علم عليم حتى ينتهي العلم إلى عالم الغيب والشهادة إلى علم الله كل ماضي مرور با علمي با كاسي مقن كل با وحبا كاسي مقن وتنمر بدن دين شيء نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام oo kitaabkii tawreedaha ilaahay ku soo deji ulul azmiga kamid shanta rususha ugu fadli badan kamid ayaa ilaahay markuu ku yiri Muuse dhulka korkiisa waxa jooga ruux ka cilmi badan ayaa wuxuu rabbi Huseen ku gaadhaa markaas wuxuu galay safartii dheeray isagii wiilkiisii u shaqeynayay ee suuratul kahf ilaahay inooga sheekay ku rafaadeen aatina ghadaana لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا وروار رفضنا كذا يدبان هيسته او وان داليه بل cuntadeena inoo raadi bal cuntada inoo keen cuntadii hadii la raadiyana ma jirto malaygii badu raacay markaas ay raadkoodii dib ugu soo noqdeen markaas hadana sheekhi uu tagay waxoogaa uu ka qaadanay isku rafaadeen sheekhi baa shuruudo u dhigay oo kadeeday oo muusow oo maxaa u yeeshay oo shardigii waad ka baxday oo raali ahaw oo isku rafaadeen war Muuse wuxuu raadinaya Muuse wuxuu doonay tawreed buu haystay ogow waa kitaabka quraanka kutubta ilaahay soo dejiyay quraanka uu weyn quraanka marka laga tago kitaabka labaad ee soo raaco tawreed waa sooma tawreed buu ilaahay ku soo dejiyay hadana maca dalika waa arday wuxuu arday u yahay nin ilaahay ku sheegay waa ka aqoon roon yahay uu ku yiri marka cilmi ma dhamaado anbiyadiina kama dhamaanin innagana warkeena iska badaa sidaas daraadeed cilmiga ilaahay idin ku fadilay sharafteeda idin siiyay yaani idin diyaariyay duruuftan la idin diyaariyay waalidiintiin idin ku kaalmeynayaan dad badan baan haysanin fursada ka faa'iideysta insha Allah ta'ala sharaf iyo qiimo halkaas ku jira cisigeedii iyo sharafkeedii iyo karaamadeediina hal idin ka arko isu yeela una arka ina sharaf iyo qiimo leediyeen sidaas insha Allah ta'ala ilaahay inugu karaameeyo hanayna cizeeyo allana tabaaraka wa ta'ala cilmiga aad baranaysaan Allah idin fududeeyo rabbi tabaaraka wa ta'ala idin ka dhigo culimo caamiliin oo siddiqiin oo ilaahay tabaaraka wa ta'ala rabbaaniyiin Allah idin ka dhigo kuwa yaani naftooda anfaca dadkooda anfaca waalidiintooda anfaca yaani adoomada ilaahay anfaca ilaahay tabaaraka wa ta'ala idin ka dhigo هادين مهديين الله يدين كدغو علماء ربانيين الله يدين كدغو إلهي واحد برنيسان هيدين كو أنفعو هذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم